bangiga Kenya maanta xaaladda uu ku sugan yahay inaan ogaan bangigeena waxa maamula 4.5 wax la yiraahdo ilaah baan idin ku dhaariyay ilaa baarlamaankii sideedaad waxa bangigaas lagu soo xulaayay wax la yiraahdo 4.5 ninka ka hadlay maanta muwaadinimo iyo wax walba ka hadlay ee dalan u dhaqanaale ee bangigiisii bangiyadii baranjiyadii Brim Bank iyo Salaam Bank ay ka hormarisiin yihiin oo baqaarab la moodo bangigeeni ayaa waxa la ajaaniba loo dhiibaya dakhliga dalka meelaha ugu wanaagsan waxa kamid ah dekada yaa noo hayo dakhliga soo aruuri waxa soo aruuriyay shirkadda waa Libiya eelaboorka yaa soo aruuri dakhliga ka soo xareedo eelaboorka waxa soo xareeya hay'ad shirkad ajnabiga maanta halkeena wuxuu ku jiraa aniga hadda ma maqlin cadaana loo dhiibay kan gaalka ugu madow in loo dhiib waayo waxa aan ku kala baxaynaa oo kaliya oo xalaasha waa ayaga ninka halka inta soo taagay muwaadinimada ka hadlay shan sano markuu joogay passport British inta la siiyay wiilkiisana bangiyada ugu qaalisan ay ka shaqeeyaan discrimination waaye ma aha muwaadinimo dalkeena waxaan rabnaa inuu furfurnaado dalkeena waxaan rabnaa inaan adduunyada wax la qaybsano dalkeena waxaan rabnaa inaan cadaalad dadkeena loogu maamulo ma doonayno 4.5 iyo wax la mid ah waxa lagu soo xulay dadka hadda qaylinaho dad waxay rabaan 4.5 in loogu soo xulo adeer lacagta ceeluray iyo makoyle iyo dhiriyow laga soo aruuriyay 4.5 kuma qaadanaysa ee canshuurta shacabka Soomaaliyeed waa maasanta aad u maasanta